السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتك وحيران يوتيوب كنا زيتون كوليج كسود وادا فيديو عصب وأنا كره اللي دونه عوانا هذا كهر أينو شاعيني إنه بلابي دونه كاسونو عوان كاسواه متكبد كورسوين كما تدري في سكسكا عوان كيسيها radioactivity هذا بنتنا عوان كنا بلابين هذه أي تهيدا وده مركي جوه رئيسات صوب وقته يوتيوب كنا فضلنا هالمام إننا سبسكرايب كسارته sidoo kale gambaleelka aad daarato si ay ku soo gaaraan dhammaan xogaha aynu soo galino YouTube-keena sidoo kale hilmaamin inaad la share gareyso asxaabtaada baahida u qabta barashada cilmiga hadaba asxaabi ciwaankeenu waa koorsadeeni labaad ee aynu soo galinayno YouTube-keena maadada physics-ka koorsadii hore waxaynu kaga soo hadalnay force baan kaga soo hadalnay introduction xog ku saabsan هذا بكورسنا waxay kaga hadli doonaa haduu Ilaahay qadaro ciwaan xasaasiye wala yiraahdo radioactivity hada radioactivity-ga intaan ka hadlin mar rabo inaan 10 kan maanta ama fiidiyogan aan ka hadlo waxa uu yahay iyo hore aan u dhex galo laakiin waxaan rabaa bar inaan marka hore aan isla ogaano radioactivity-ga in xageebu ka imaanaya sababtoo ah shay kasta hadii aad ogaato meesha uu ka soo burqanayo ishiisa hadii aad hesho meeshiisa ugu dameysa waa laga yaabaa inaad gaadho laakiin shay kasto aadan ishiisa aadan garanayn meesha uu ka yimaado aadan garanayn waxa daadihinaya uu ku socdo aadan garanayn waxa laga yaabaa si kasta aad aqoon ugu leedahay shaygaasi in uu xoogaa kugu noqdo mid markii aad daraasaynayso aad aqoon u leedahay laakiin daraasadnimadiisa markii aad ka baxdo laga yaabo in aad dareento in aadan waxa garanayn hadaba asxaabi fiidiyogeena maanta waxaanu ka hadli doonaa xog ku saabsan introduction waxa weeye radioactivity-ga xagee buu salka ku hayaa waxyaalo kale oo inaga saacidi doona radioactivity-ga baynu ka hadli doonaa hadaba radioactivity-ga markaynu ka hadli doono asxaabi salka waxa uu ku hayaa ciwaan la yiraahdo isotope hadaba hadii isotope aynu fahanno waxa laga wado aynu fahansanahay qaybihiisa isotopiska aynu fahannahay waxa awood u yeelan karnaa inaynu radioactivity-ga aynu fahanno sababtoo isotopisku waa meesha uu ka soo burqado chapter-kan radioactivity hadaba marka koowaad secondary-ga waxaanu maqalnaa isotope chemistry-ga waxaanu ku maqalnaa isotope hadaba ay xasuusinay isotopisku waa maxay isotopisku hadii aanu fiirino definition ugu sahlan waxa weeyaan isotopisku waa waxa weeyaan same proton number but different mass number same proton number but different mass number waxa weeyaan waa shay proton numberkiisu ay isku mid yihiin laakiinse masska ay ku kala duwan yihiin protonka ay isku mid ah mass numberkana waxa weeyaan waa loo kala duwan yahay aan si fududeeyo atom kasta waxa uu ka kooban yahay laba qaybood atomku laba qaybood uu ka kooban yahay mid waxa la yiraahdaa nucleus midna waxa la yiraahdaa electron nucleusku buudu waxay ka sii kooban tahay laba qaybood kuwa la dhaho proton iyo kuwa la yiraahdo neutron hadaba fiiri atomku waxa uu ka kooban yahay proton neutron electron protonku laftigiisu qaybu sii leeyahay neutronku qaybu sii leeyahay electronku qaybu sii leeyahay waxa weeyaan inaan sii galo mar rabo laakiinse saddexda asaaska u ah waa proton neutron iyo electron hadaba waxaynu naqaanaa oo caanaylanahay oo aad u garanaynaa waxa jira wax la yiraahdo mass number mass number-kuna waa maxay waa atomkan cufkiisu intee uu leeyahay oo maxaa lagu helaa protonkiisa oo lagu daray neutronkiisa protonka oo lagu daray neutronka hadaba protonki hadii uu yahay shay constant aan isbedbedelayn waxa isbedbedelaya waa neutronka hadii neutronki uu isbedelana masski uu isbedbedelaya marka definition keeno halkaasi marka laba qaab oo taariifin karno oo waxaan oran karnaa waa proton number isku mid ah
mass kala duwan ama maxaan oran karaa waa proton number isku mid ah neutron kala duwan laakiinse waxa qurux badan in la dhaho waa proton number isku mid ah laakiin mass-ku uu kala duwan yahay mass-ku inuu kala duwanaadana dee neutron-kaas sababay marka labada qaab adigu waad u oran kartaa sidoo kale asxaabay atomku markaynu ka sheekeynayno saddexda qaybood uu ka kooban yahay protonka electronka iyo neutronka waxa uu qaabilsan yahay mid kasta waxa uu qaabilsan yahay tusaale ahaan oo kale proton markaad maqasho atomka waxyaalaha uu qaabilsan yahay maxaa ka mid ahaa identity-ga haddii aad maqasho macnaheedu tusaale ahaan oo kale shaygaasi protonkiisu waa 11 automatically wax kugu soo dhacay sodium ama maskaxda ku soo dhacaysa xagee ka kartay inay sodium ay tahay sababtoo ah waxaan aqaanaa sodiumku inuu leeyahay 11 proton marka protonku waxa uu leeyahay identity-ga shayga kan in la garto mas'uuliyadiisa waxa shaqada qabta protonka qabta shaqada ugu weyn oo protonku qabto waa identity neutronku shaqada ugu weyn oo uu qabto haddii aan ku dhaho shaygaas 11 neutron buu leeyahay lagama yaabo inaad soo qabato shay elementigaas haddii aadan xifdisanayn laakiinse neutronku waxa isaguna uu qayb ka qaataa mass numberka shayga kan mass numberkiisa in la helo waxa asna door fiican ka ciyaara neutronka electronkuna wuxuu u qaabilsan yahay atomka reaction waxba la falgeliyay inta hadaad maqasho macnaheedu waxa weeyaan shayga kani electron baa lose gareynaya electron baa la soo qaadanaya electron baa la share gareynaya electron macnaheedu shaqadaas oo dhan reactivity ama reaction baad maqasho elementiga waxa uu qaabilsan waxa la yiraahdo electronka uu qaabilsan atomka electronka uu qaabilsan marka aynu ka soo laabano intaas waxa weeyaan naftigiisu waa introduction elementigu يعني هذا waxa weeyaan proton oo kale waa la sii qaybiya qaybuu leeyahay neutronku qaybuu sii leeyahay electronku qaybuu sii leeyahay laakiin mid kasta shaqo leeyahay identity-ga waa protonka mass-ka waa neutronku protonku uu ka ciyaaraa laakiin shaqada ugu wanaagsan protonku uu qabto waa identity-ga sidoo kale mass-ka uu qayb qaata electronku waa maxay waa reaction waxba la lose gareey waxa soo dhanna electronka qaabilsan hadaba ereyga isotopes waxa isla fahanay inuu yahay proton number isku mid ah iyo mass kala duwan intaas way isla fahanay hadaba ereyga asalkiisu xagee buu ka yimaaday marka ereyga asalkiisu waa kelmad Greek ah oo ka timaaday isos oo macnaheedu laga wado equal iyo topos oo macnaheedu laga wado place hadaba sidaa markii la dhaho kelmaddu waxay noqonaysaa same place meel isku mid ah hadaba meel isku mid ah maxaa loola jeedaa marka meel isku mid ah yani maxaa loola jeedaa yani same place maxaa loola jeedaa waxa loola jeedaa markii la tago periodic table-ka markii aynu tagno macnaheedu waxa ay ka dhacayaan isku mid hadda carbon 6 carbon 13 waa isotope protonku waa isku mid laakiin mass-ku waa kala duwan yahay waana hal element laakiin se periodic table-ka haddii aan fiiriyo labadooda isku meel bay ku jiraan isku meel bay dhacayaan sida la ajligeed maadaama periodic table-ka isku meel ay dhacayaan kelmadda asalkeedu halkaas ka timaaday hadaba inta waxaan uga baxayaa isotopes waxa uu yahay iyo asal kelmadda meesha ay ka timaaday macnaha loola jeedo same place hadaba isotopes laba qaybood weeyaan ko waxa la yiraahdaa stable isotopes kuna waxa la yiraahdaa unstable isotopes stable isotopes waa maxay waa isotopyo xasiloon unstable kuna waa maxay waa isotopyo aan xasilnayn okay isotope aan xasilnayn marka aan maqlo macnaheedu ama ereyga unstable markaan macnaheeda maqlo automatically aan ku laabano elementiyada inay ku soo laabano su'aasha weydiinta waxa weeyaan sideeda group oo ka kooban yahay periodic table-ku sideeda qaybood periodic table-ku ka kooban yahay waxaynu maqlaa group 1 group 2 group 3 group 4 magacyada leeyihiin group 1 alkaline earth metals alkene metals alkali metals halogenes soo soco group 8 maxaa la dhahaa energy gas soma aan maxay ku yihiin waa unreactive group 8 ku waa elementiyada kaliya ee aan wax iyagoo reaction ku jira aadan dunida waliga aadan ku arkin
haddaba waxa laga yaabaa sodium inta sodium chloride inta waxaad arkaysaa waxbaad arkaysaa why su'aasha weydiinta le waxa weeyaan neon oo reaction ku jira maxaan u arki waayey sababta aan u arki waayo waxa weeyaan waxa lagu leeyahay neontu waa stable macnaheedu waa maxay macnaheedu electronkeeda shalka ugu dameeya waa uu buuxaa macnaheedu laba ku jira ama state ama waxyaalo kale ku jira haddaba shalka ugu dameeya elementigu haddii uu buuxo macnaheedu waxa ay la dhigan tahay elementigaasi waa unreactive macnaheedu elementigaasi waa unstable macnaheedu maxay afwan waa stable haddaba stable markuu elementiga uu noqdo macnaheedu waa unreactive waxa reaction uu sameeynaayo ma rabo haddaba dhammaan elementiyada markii laga reebo gruubyada markii loo tago oo group 8 laga reebo toddobada group ee soo hadhay iyaguna waxa ay jeclaystaan inay noqdaan stable kuwa xasiloon haddaba si ay xasiloonida u gaaraan waa in ay wax sameeyaan waxyaalaha ay sameyn karaan waa inay reaction ay galaan reaction haddii ay sameyn waayaan reactionna muxuu sameynayaa ama losing buu sameynayaa waxbuu lose gareynayaa fiiri sodium baa waxa lagu daray baa lagu leeyahay chlorine sodium chloride baa soo baxday sodium waxbay iska dhumisay waxbay xoodhay chlorine taa wax qaadatay way sodium ay wax u dhuminaysaa chlorine wax u qaadanaysaa sababtoo ah they need to become stable waxay rabaan inay stable ay noqdaan stable nimadaasi marka reaction bay rabaan inay ku gaaraan reaction kuna see ugu suurtoobaysaa waa inay sameeyaan losing waa inay sameeyaan waa inuu mid wax lose gareeyo mid waa inuu wax weeyaan waa inuu wax sameeyaa gaining waa inuu wax soo qaataa mid waa inuu sharing uu sameeyaa maalin kasta waxa rabtaan hydrogen qor hoosta laba inuu gelinaa way hoosta labada inuu gelinaynaa sababtoo ah hydrogenka asalkeedu waxa waa elementka koowaad waa hal waxay leedahay electrona kana waxay wadataa hal electrona ama hal protona haddaba labadooda maxay sameynayaan si ay stable u noqdaan xabad xabadooda bay isku darsanayaan macnaheedu waxa weeyaan waxa ay noqdeen full outer shell laba ay ku buuxsameen macnaheedu waa stable haddaba asxaabi elementigu marka haddii uu unstable uu yahay markasta waxa uu raadiyaa dariiqada uu ku noqon lahaa stable reaction bay ku noqonaya marka haddaba dariiqadaha lagu noqdo waa reaction inaad samayso ama dariiqada labaad ee lagu noqdo waa in la sameeyaa wax leedo decay waa inaad burburisaa yani waa maxay atomkaaga gudihiisii rearrangement waa inaad ku samaysaa waa inaad qaabkaaga iska bedeshaa ama reaction waa inaad samaysaa ama decay burbur waa inaad samaysaa haddaba reactionkaasi isaguna saddex qaabood ha u sii dhaco oo mid ha sameeyo losing mid ha sameeyo gaining ha sameeyo midna ha sameeyo sharing ha sameeyo ama midna ha sameeyo wax la yiraahdo dative ha sameeyo oo dative ku waa maxay labadii elementi sharing ku waa maxay horta losing horta aan ka soo bilowno losing ku waa maxay waxbaan lose gareynaya mid wax lose gareynaya uu ka maarmaya gaining ku waa maxay mid baa wax soo qaadanaya isagu waxba iska bixi maayo sharing ku macnaheedu waa maxay anna wax la imo anna wax baan la imanaya dative kuna waa maxay war anigu waxba la iman maaye sharing baan ku sameynaya anana wax ku siinaya dative ku waa maxay macnaha laba elementi baa isu tagay labada elementi sida sharing saxda dariiqada saxda sharing lagu yaqaan waa maxay waa in midkood wax keena labadu kan haduu xabad keeno waa inuu kan xabad keena kan haduu xabad keeno kana waa inuu xabad keena laakiinse markii laga hadlaayo dative ku macnaheedu waa maxay labadooda sharing bay sameynayaan laakiin mid baa labada dhinac xiisu ka imanaya tusaalaha ugu caansan ee waxa la yiraahdo dative-ka oo waxa la yiraahdo ammonia fiir ammonia NH3 oo lagu daray hydrogen oo waxa weeyaan waxba wadan marka maxay sameynaysaa oo isla balgalaysaa hydrogen tan laba xabo bay siinaysaa automatically yani ammonia way buuxdaa way siinaysaa ammonia iska bedelaysaa ammonia bay isu bedelaysaa waa dative waxa soo dhan waxa la yiraahdo waa chemistry laakiin si waxa inala galay stable haddaba asxaabi haddii elementigu uu noqdo unstable waa inuu raadiyaa dariiqada uu ku noqon lahaa stable dariiqadaasi ama ha sameeyo reaction ama ha sameeyo decay haddaba fiiri waxaan yiri unstable isotopyadii aan xasiloonayn need waxay u baahan yihiin to become inay noqdaan stable bay u baahan yihiin and their moleculedooduna gives out waxay dibad u soo saarayaan ila reaction ma sameynayaan iyagu moogtahay decay bay rabaan inay sameeyaan rearrangement bay sameynayaan
waxay dibadda u soo saarayaan radiation bay u soo saarayaan radiation kana maxaa la yiraahdaa radioactive decay baa la dhahaa radioactive decay baa la dhahaa haddaba asxaab intaas waxaan hadda isla garanay isotopes wax laga wado kelimada isotopes meesha ay ka timaaday sidoo kale waxaan isla garanay isotopyadu inay u qaybsamaan laba qaybood midna uu yahay stable midna uu yahay unstable midka unstable-ka ah waxa uu baahan yahay inuu stable noqdo stable inaad noqotaana waa in waxa weeyaan aad samaysaa reaction kaasna waxa weeyaan saddex qaab ku noqdo ama lose garay wax ama wax soo gain garayso oo wax soo qaado ama wax share garay ama adiga oo sharing sameynaya waxa aan lagu share tagaayana adigu wada bixi native macnaheedu waa maxay waxa anigu waxa weeyaan aan keenayo labadeena share may sameynayna laakiin adigu waxba kaama rabo aniga wax ku siinaya decay-guna waa maxay elementiga laftigiisa intaas marka uu suurtoobi weydo waa inuu decay waa inuu sameeyo burbur waa inuu sameeyaa burburka marka uu sameynayana radiation baa soo baxaya radiation kana maxaa la yiraahdaa radioactive decay halkaas waxa inooga soo baxay ciwaankeeni ahaa radioactivity halkaas asxaabay bay inoogu soo bixi doonto hadaba asxaabay sidoo kale waxaan rabaa inaynu ka hadalno elementsiyadii waxa la yiraahdaa waxa loo soo gaabiyaa qaab yar baa loo qorayaa shorthand baa loo qorayaa shorthand-ka elementyada loo qoraayo shorthand-ga elementyada loo qoraayo sidaas weeyaan yani halkaas waxa dhigaysaa elementigi x maxay u taagan tahay atomic symbol macnaheedu waa maxay waa abbreviation used to present atom in chemical formula waxa weeye la yiraahdaa waa soo gaabin la isticmaalayo elementigi chemical formuladiisa waxyaalaha loo soo gaabinayo x baa la yiraahdaa yani hadhow x dhigmayna anagu waxaanu dhigi doonaa elementiga symbolku sidaan dhigi doonaa a oo kor ah macnaheedu waa maxay waa mass number macnaheedu waa maxay number of protons and neutrons in atom protonka oo lagu daray neutronka hadayna aynu ka soo hadalnay z-ku macnihiisuna maxay u taagan tahay atomic number magac kale haddaan kugu sheego proton number bay u taagan tahay haddaba asxaabi halkaas waxa inooga soo baxay mass number in ay ila dhiganto mass numberku wax la yiraahdo proton oo lagu daray neutron mass numberka maxaa loo soo gaabiyaa a baa loo soo gaabiyaa protonkana maxaa loo soo gaabiyaa z neutronkana wax la symbol ma lahan isagu neediisa loo soo gaabiyaa macnaheedu halka waxa iga soo baxay a waxa ila macna tahay z oo lagu daray neutron macnaheedu waxa weeye z waa proton oo lagu daray neutron elementkan aynu soo qaadano chemical formuladiisu waa c carbon kc baa loo soo gaabiyaa protonkiisu waa imisaan haystaa horta fiiri neutronkiisa aan la soo baxo a imisaan haystaa oo kor mass numberka lagu qoraa 12 baan haystaa z imisaan haystaa 6 baan haystaa lagu daray n halkaas waxa iga soo baxaya inay la dhigan tahay 6 macnaheedu carbonkani waxa uu leeyahay 6 proton sidoo kale waxa uu leeyahay 6 neutron sidoo kale element kasta ama atom kasta markuu shaygu atom uu yahay fiiri shaygu markuu atom yahay number of proton is always equal to number of electron shaygu markuu atom uu yahay uusan de wax ion uusan ahayn protonkiisu markasta waxa uu leeyahay electronkiisu leeyahay hadaba maadaama atom ay tahay 6 proton maadaama ay leedahay sidoo kale 6 electron way leedahay hadhow maadaama protonku uu plus uu yahay kana minus uu yahay way iskansali doonaan 0 macnaheedu atomku chargerkiisu waa 0 sababtoo ah waxa uu leeyahay same number of proton and same number of electron buu leeyahay laakiin ion markaynu tagno oo waxa weeyaan sodium oo kale aynu soo qaadano waxay leedahay 12 proton waxay leedahay 12 neutron sidoo kale 12 electron maadaama atom ay tahay laakiin sodium ion markaan dhaho reaction baa la sameeyay macnaheedu waa maxay electron baa la bixiyay protonkii waxay leedahay 12 proton sidoo kale waxay leedahay 12 neutron laakiin electron bay iska bixisay waxay yeelatay 10 electron waa plus 1 halkana waa minus 10 labada markii la isku daro de plus 12 oo laga jaray plus 10 waxa soo baxaysa plus 1 calaamaduna halkaas ka imanaysa
that means ionku marka shaygu ion lagu leeyahay wuxuu leeyahay am positive ama negative laakiin atom marka uu yahay shaygu waxa uu leeyahay zero charge intaana waxaan rajeynayaa asxaabay inaynu isla fahnay haddaba asxaabi weli waxaynu ku jirnaa waxyaalaha introductionka haddaba su'aal baan la weydiiyey su'aashaasi waxay tahay what is the difference between isotope, isobar, isotones and isomerism? فرق ugu dhaxeeya kalimaadkan chemistry-ga waynu ku maqalnaa physics-ka waynu ku maqalnaa ereyga isotope waynu ka hadalnay isaga waynu garanaynaa isobar-ku waa maxay isotones-kuna waa maxay isomerism-kuna waa maxay sidoo kale waxa jira mid kale oo badanaa chemistry-ga aynu ku aragno oo ah allotrope haddaba asxaabi farqiga u dhaxeeya iyo waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin waxaynu ka hadli doonaa fiidiyogeena xiga haddaba maanta fiidiyogeena intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa asxaabay intaynu ku kulmi doono fiidiyogeena xiga oo aynu ka hadli doono farqiga u dhaxeeya isotope isobar isotone isomerism iyo allotrope laftigiisa aynu ku xisi doono waa anagoo isku duubano idin leh isma dhaafno fi amaan illah